xukuumadda Somaliland ayaa saaka xukun toogasho ah ku fulisay 6 nin oo horey dil loogu xukumay kadib markii ay dilal kala duwan ka geysteen deegaano ka tirsan gobolada Somaliland. Xukunka toogashada ah ayaa ka dhacay jeelka weyn ee Mandera oo ku yaala gobolka Saaxil saaka saacada Geeska Afrikada Bari markii ay tilmaamaysay 8 subaxnimo. Gacan gudhiiglayaasha xukunkan dilka ah lagu fuliyay ayaa ka soo kala jeeda deegaano ka tirsan Somaliland, waxayna magacyadooda kala yihiin Farxaan Maxamed Xasan oo ka soo jeeda Buuhoodle, Cabdilaahi Ismaaciil Xayd oo ka soo jeeda Burco, Axmed Guray Ibrahim Faarax oo ka soo jeeda isna Burco, Khadar Aleel oo ka soo jeeda Gibley, Xasan Maxamed Cusmaan oo ka soo jeeda Hargeysa, Aydruus Khadar Haybe oo ka soo jeeda isna Hargeysa. Suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Abduqaadir ayaa ku baaqay in aan dib loo soo celin khilaafaadkii xisbiyada, waana in laga gaaro xal iyo heshiis kama dambays ah oo ay isku afgartaan saddexda xisbi qaran. Suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Abduqaadir oo waraysi gaar ah siiyay wargeyska Geeska Afrika wuxuu yiri in khilaaf dambe inagu soo noqdo maaha mana wacna ee saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda waxaan talo odaynimo ku leeyahay waxa inoo wada dan ah heshiiskiina ee khilaaf dambe yaanu inagu soo noqon ee heshiiska ma dambays ah gaara heshiiskiinuna waanu ku farxaynaa oo dhammaan dadkeenu way ku farxayaan, laakiin khilaafaadkiinan soo noqnoqonaya dan inooma ahan ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Abduqaadir.